dharkii ayay ka siibtay oo way qaawisay wariyaan idinku daalinaan sheekadeedin dhamaystiray hadda kor baa waxaa dhacday haweeney 99 jir ah ayaa waxay tagtay bangi waxay ku tiri waxaan rabaa maamulihii bangiga waxaa lagu yiri waa mashquulsan yahay beri soo laabo xijru ma soo laabo karo arrin degdeg ah ayaan ka leeyahay waxaan rabaa in hadda layla kulansiiyo alxaas isjiijid dar kadib waa lala kulansiiyey oo waa loo geeyay maamulihii waxay ku tiri waxaan haystaa lacag $180,000 ah waxaan rabaa in aan akoon furtid hadda maamadu waa maamad duruufaysan aad iyo aad u rafaadsan uma eka qof $1,000 xataa haysta wuxuu ku yiri macquul maahan sidee adoo noocaan u eg ku haystaa $180,000 waxay ku tiri qamaarka ayaan ciyaaraa ama dheelaa wuxuu ku yiri sidee macquul maahan adoo 99 jir ah sidee qamaar u ciyaari kartaa wuxuu ku yiri diyaar way akoon lagu furayaa laakiin uma maleynayo inaad haysato lacag intaas dhan qamaarna ma ciyaari kartid waxay ku tiri adigu meelo dhigan kartaa qamaar oo meelo dheeli kartaa wuxuu ku yiri diyaar waan ku dheeli karaa okay waxay ku tiri $25,000 ayaa miiska ii saaran haddaba biri xilligan oo kale markii la gaaro xaniyahaadu waxay noqonayaan 4 gees haddaba waa naqaanaan xaniyaha ragga inta badan waa wareeg ama koobaabin ma ahan 4 gees wuxuu ku yiri macquul maahan mana noqon karaan 4 gees waxay ku tiri biri haddii ay noqon waayaan 4 gees $25,000 adiga ay ku dhimanaysaa adigna 25 kale ila dhimo haddii ay ila dhigo haddii ay noqon waayaan lacagta aniga ay dhimanaysaa oo $50,000 ayaan qaadanaya 25 kale iyo 25 okay diyaar buu ku dhahay waxay tiri hal mid iga ogolaaw waxay ku tiri hal mid iga ogolaaw oo ah inaan soo wato qareenkayga maadaama lacagtu tahay lacag badan si oo markhaati u noqdo markaan lacagta kaa dilanayo iyo ogolaaw qareenkayga inaan hore u soo wato diyaar way ku dhigay hore u soo wado qareenka ayay la soo gashay heshiis waxay ku tiri maamulaha bangiga ugu weyn dunida maamulahaas dhan ayaan kuu qaawinayaa maxaa isiinaysaa asaga ee dana sharadka la dhigtay wuxuu ku yiri $100,000 aan ku siinaya hadaad maamulaha qaawiso waa nin is yaqaanaan wuxuu ku yiri diyaar waaye $100,000 aan ku siinaya hadaad qaawiso okay wuxuu ku tiri soo bax waxay u imaada maamulihii bangiga waxay ku tiri 5 saac la gaaray waxaan kaa rabaa inaad dharka iska bixiso si aan u aragno xaniyahaada inay wareeg noqdeen ama koobaabin iyo inay afrigeesiin inta dharkii uu iska bixiyay wuu isqaawiyay waliba qareenka hortiisa ayuu isku qaawiyay qareenka wuxuu arkay ninkan oo qaawan maamadan $100,000 oo dhimatay ninkaana 25 u dhintay asaga xaniyana awal ma naqanaynin wareeg laakiin ayada muhiimadeedu maxay ahayd inay 100 dilato 100 25 asay siinaysaa ayada maxaa waaray $25,000 hadda ugu maskaxdan iyo caqliga meesha ku jiro ugu dumarku waa qiyaano socoto la iska ilaaliyo 99 jir ayadoo ah ayaysan wax u qiyaanaysaa fadlan waxaan ka codsanayaa inaad soo follow gareyso page-kayga oo ku soo biirto asxaabteyda sidoo kale ha hilmaamin inaad muuqaalkan share gareyso oo aad la wadaagto asxaabtaada intaasi waa dhiirigelinteeda haddaba sheekadii waxay ku dhamaatay maamadii waayeelka ahayd ayaa ku tiri xariif markay lacagteedii qaadatay lacagtii u dhimatay $100,000 ayaa laatishintiisi lagu kontona la siiyay ninkan laatishintiisi iyo laatisho kale isugu dartano xariif waxaa loo yiraahdaa fiiri qamaarka adig kulama dhigana ninkan la socda ayaan la dhigtaa ma fahamta $100,000 ayaan ka qaatay si aan u tusiyo xaniyahaada yani adigu qaawan si aan u tusiyo ayaan waxaan ka qaatay $100,000 adigana $25,000 ku dhigtaa ma fahamta $100,000 aan laatishinkaasi yaalaaday marka xariif baadariya tay ku salaama laano si loo dhaqaajiyo guys idinkana waa idin salaamayaa muuqaalkan هلا شير جريو لايك iyo commentiga waa dhiirigelin salaamu alaykum guys